بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالعلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. كذا الصراط فالعباد مختلف، مرورهم فسالم وممتلف. كذا الصراط فالعباد مختلف، مرورهم فسالم وممتلف. والعرش والكرسي ثم القلم، والكاتبون اللوح كل حكم. والعرش والكرسي ثم القلم، والكاتبون اللوح لا لاحتياج وبها الإيمان، يجب عليك أيها الإنسان. يجب عليك أيها الإنسان. والنار حق أوجدتك الجنة، فلا تمل لجاحد بجنة. والنار حق أوجدتك الجنة، فلا تمل لجاحد بجنة. دار خلود للسعيد والشقي، معذب منعم مهما بقي. دار خلود للسعيد والشقي، معذب منعم مهما بقي. إيماننا بحوض خير الرسل، حتم كما قد جاءنا في النقل. إيماننا بحوض خير الرسل، حتم كما قد جاءنا في النقل. ينال شربا منه أقوام وفوا بعهدهم، وقول يذاد من بغوا. وواجب شفاعة المشفع، محمد مقدما لا تمنعي. وواجب شفاعة المشفع، محمد مقدما لا تمنعي. وغيره من مرتضى الأخيار، يشفع كما قد جاء في الأخبار. وغيره من مرتضى الأخيار، يشفع كما قد جاء في الأخبار. إذ جائز غفران غير الكفر، فلا نكفر مؤمنا بالوزر. ومن يمت ولم يتب من ذنبه، فأمره مفوض لربه. كذا الصراط فالعباد مختلف، مرورهم فسالم ومنتلف. waxyaabihii in la rumeeyo waxyaaba ay waajib tahay oo samciyaada oo naloo sheegay oo nandhahna ku arag baa la soo waday sida ay yihiin la tilmaamayay. waa wujuub samci ah. marka sheekhu marka wuxuu yidhi kada siraatu, kada ay mithlu lmadkuuri, wixii la soo sheegay waxaa ka mid ah. wixii la soo sheegay waad garanoo يعني أخذ الصحف، أخذ العباد صحفة إيو الوزن الميزان وحاصل دن وحياب السمعيادة والنصوص النوشيغين كما إني وصاص عن كسو بينوي وحياق اللمدة. وفي الوجوب السمعي كلمدة الصراط. الصراط صراط كي وددي على متن جهنم مريسي، كذا كالمذكور وحي لصوشيغي، أي مثل المذكور وحي لصو شيغي بو لمد يحي ومن أخذ العباد الصحف والوزن والميزان، وحنا كلمد يحي كل وجوب السمعي وواجب سمعي وحيابه سمعيات كأهابه كوضا ترسيهين صراط كمركة واسداس. فالعباد مركة عضامه مختلف مرورهم، مختلف مدو كالدوين هاي وهي مرورهم مريتان كوضا وعلى صراط مرايان. فصالم ومنهم وحا كمد
saalimun mid nabadgelahaya oo si nabadgelyaha ku marahaya marka meeshaas fa minhum saalimun fariiqun koox baa ka mid ah saalimun nabadgelaysa oo ka gudbaysa macnaha nabad uga gudbaysa siraadka wa muntalifun wa minhum fariiqun muntalif waxaa ka mid ah dadkii ay addoomihii fariiqun koox baa ka mid ah muntalifun talfaya oo halaagsamahaya wuxuuna ku halaagsamayaa yacni waxaa weeye meesha iyada ah bilwuquuci fiiha inuu ku dhaco waatay axaadiisu tilmaameen in biro kalaaliib la yidhahdo saa u qarqaroofan ay macnaha jawaanib ay siraad ay taagan yihiin marka dad bay la degayaan intay surtaan marka muntalif wey marka qofkaas waa tabti marka axaadiistii ay u sheegeen waa sidaas iyadaha wey asiraadu siraadki kadaa kuwaasuu la mid yahay yacni midlu lmadkuuri wixii lasoo sheegay oo addoomuhu warqadahooda intay qaataan acmaashooda lagu qoray inay akhrisan hayaan in la miisaami iyo waayahay aaladii lagu miisaamayay iyo wixii oo idin waataan soo ogaanay kuwaas ayuu siraadkii la mid yahay waayahay marka siraadna macnihiisa waxa weeye xagga luuqadda aariiqu saxiix waddada saxda ahoo toosan ayaa siraad la yidhaahdaa laakiin xagga sharciga waxaa weeyaan jisrun mamduudun calaa matni jahannam yariduhu alأwaluuna wاlaakhiruuna xata alkufaar waxaa weeyaan waa jisrun mamduudun buundo la taagay calaa matni jahannama dhabarka jahannamaha saa loogu dul taagan min xaafatin ilaa xaafa jirjirkaa ilaa jirjirka kaleu saa u taagan yahay sida buundada wegiyaalka iyo ka gudba aad ku taqaanid yariduhu alأwaluuna wاlaakhiruuna kuwii horey kuwii dambe meesha way ku arooriyo wain minkum ilaa waariduha kaana calaa rabbika xatman maqdiya qur-aankaaba ilaahay ku sheegay qof walba meeshaas inuu waddadaas ku aroori doono xataa alkufaar gaalada way ku arooriyo in gaalada laleeya waxaa weeyaa siraad la marina jahanamo qarkeeda ha lagaga daadiya ma aha ee siraadkay ku marayaan oy galahayaan markay siraadka ku dul marayaan baa looga hoobinayaa meeshaas macnihi saas weeyaan waddadaas waa lagu inta ka gudbaysa keliya in buundada la saaraya ma aha ee kuwo lagula haray meesha iyo kuwo ka gudbiba buundada waa la wada fuulhayaa sidaas weeyaan marka jisriga bahalka lagu sheeg siraadka lagu sheegayo waa jisrigaas kaabadaas ama buundadaas calaa matni jahannamo dusheeda sidaas loo saaray weeye markaasuu yidhi falcibaadu mukhtalifun muruuruhum falcibaadu addoomihii mukhtalifun miduu kala duwan yahay weeye muruuruhum maritaankooda ay siraadka marayaan isku si ku mari mahayaan way kala duwan yihiin kow xataa kuwa ka gudbayo nabadgala ka gudbahayaan isku xawaaro ku marayn kuwa lagula harayna ayaguna waa sii kala duwan yihiin markaasuu wuxuu yidhi fasaalimun fa minhum waxaa ka mid ah fariiqun saalimun koox nabadgelaysa oo waxaa weeyaan min alwuquuci fii naari jahannam jahannamo inay ku dhacaan bay ka nabadgelayaan wa muntalifun iyo mid talfahaya wa minhum fariiqun muntalif koox talfaysa oo halaagsamaysa ayaa ka mid a bilwuquuci fiiha inay markaa ku dhaceen bayna ku halaagsamahayaan way sii kala duwan yihiinoo ima cala adawaami wata'biidi kaalkufaari waalmunaafiqiin wa ima calaa muddatin ilaa muddatin yuriiduha allahu tacaala uma yanjuu ka bacdi cusaati almu'miniina wakaas dadka qaar dhicidday ku dhaceen waa cala dawaami wata'biid weligoodba waasay u galeen weeye kama baxayaan kufaartii munaafiqiintii waa wada kufaari laakiin kufaartii gaalnimadooda caddaysatay iyo munaafiqiinta kuwii gaalnimada qarsanahayay oo islaamnimada hirsanhayay wey qolana ilaa muddatin yuriiduha allahu tacaala bay ku jirahayaanoo waa laga soo saari doonaa uma yanju waxaa ka kuwaas waxaa weeye miaal ahaan ka bacdi cusaati almu'miniina waa tan uu miaaliyey oo dee kuwii bacdi cusaati almuslimiin oo markaas dunuubta in laga soo dahiriyo on meesha loo geliyo marka horaa marka gelinta ay gelidda la gelinhaya macnaha naartay ku kala duwan yihiin gaalada iyo kuwan cusaat almu'miniin oo gaaladu cadaabkooda cadaabu ihaanatin weeye laakiin kuwan cusaat almu'miniina cadaabu tadhiirin weeye macnaha waxba laga jarhayaa mooyaane lagu ihaanayn maayo cadaabu tadhiir baa la yidhaahdaa marka addoomihi saasay u kala duwan yihiinoo marka falcibaadu mukhtalifun muruuruhu fasaalimun wa muntalif bay u kala baxaan buu ku yidhi waalcarshu waalkursiyu uma alqalamu waalkaatibuuna allawxu kullun xikamu waayahay waalcarshu carshigii waalkursiyu iyo kursigii uma alqalamu iyo qalam waalkaatibuuna malaa'igtii wax qorahayay allawxu wallawxu iyo lawxi kullun dhammaan
ومن هذه المذكورات كمدا كل من هذه المذكورات حكم ذو حكم حكمة من صاحبها وهي أبورد إلهي وأبوري حكمة بو أبوري لا لاحتياج باهي وقب ما هينه لا لاحتياج باهي وقب إلهي وما أبورنين والإيمان الرمين بها مذكورات قال الرميانة يجب عليك واجب أيك وطهي أيها الإنسان قفوا إنسانه واجب أيك وطهي سكحرين مرك لا يبي أشياء تريي والعرش عرشي عرشي قوام مقلنا تلمان بالله كان علماء كبحيانه وجسم عظيم نوراني علوي وجسم وين ومخلوقات كعقوي هاي ولي هدي لقاده صح لو دول صارع قرانقر يرى دور أرض الفراد على لغو طوري وكالو أدونك انتي سكال سماواتك أرضوية كدقينيهين آد بأقوي هاي وأدونك انتي سكالادا مخلوق انتي سكالادا آد بأقوي مركا وجسمي عظيم وهو نوراني نور لقى أبور علوي وحاويا كرلو نسبية عالمك علوي هو كمدي هاي halka hadda inagu caalamka sufliga aan ka midnahay saas markii loo tilmaamay muxuu ka abuuran yahay baa marka aad inta looga hadlay marka culimadu waxay yiraahdeen wal awla al imsaaku an al qad'i bi ta'yin haqiqatihi sida awlaha ah haboon waxa weeye in laga joogo oo laga afhaysto cayimaada xaqiiqadiisa wuxuu ka sameeysan yahay xaqiiqadiisa in la cayino in laga afhaysto ayaa ka haboon oo ka fiican li adam al ilmi biha xaqiiqadiisa door badan laga hayo واحد النصوص قاطعة وقوت التلمانتين مجرتين وين هي أمورها إذا أي مجلس صار وقرآن سنة تتاسي وبلنتها وحلقها الله يا حقيسي وحكى أبوريها يا هوشا تاين لقيت شوقا مركا كنبت قليا بدن كاو عرشي والعرش عرشي والكرسي يا كرسي ناسقنا وجسم عظيم نوراني تحت العرش ملتصق به فوق السماء السابعة بينه وبينها مسيرة 500 عام وكايساغنا waxa weeyaan waa jismi asaguna weyn oo nuur laga abuuray oo nuur ka sameysano taxta al-arsh buu ku yaalaayo halkaas uu dhigan yahay yaala hadana waxa multasiqun bi arshi uu ku dhigan yahay kaga foga fawqa samaa'i saabi'ati sawa saabicada uu ka sareeyayo baynahu wa baynaha waxa u dhaxeeya labadooda asaga sawa saweynka ugu sareysa waxa u dhaxeeya masiratu 500 aamin shan boqol oo sano si aan kala go' lahayn loo sii xawaareynahay muddo loo intaas kala loo socon karaan aad bay markaa u kala fog yihiin waayahay marka dadka marna de samaawaadka dhexdooda rabbigood ku sheegay marna masaafada inta leeg kursiga u jira xarsiga ka sii sareeya korkiisa ku sheegay ee waxa weeye meel buuxo ugu sareysna ayagu ilaahay jismi ka dhigay oo makaan u yeelahay haddana hada makaan uu ugu salaysan yahay ma jirtaba makaankii awal baadilka la tahwiil jihatu sit وإلهي ممنوع كها مستحيل كه فلا جهة تحوي الإله ولا له مكان تعالى عنما وتمجد يعني وحويا وحيامي النعاس والسلف يا خلف علماء يذكر عن إلهي إنه كان في سنتها أو عن كناء مكاننا مرك إلهي كنت المامين حدنا هذا يجب من مال كريه كان هم يسنين سكوك الخلاف سنة هل كقفك أنت أصلا مكان إلهي إنه جوك كامن سن مركا وأدي عقيدة كفاسدها هوي marka saasi u kala fog yihiin kursiga iyo samada saabicada arshiguna kursigaas uu ka sii sareeyaa wax isku dhow marka ma aha fi samaayi buu igu dhex jiraayo calal arshi buu ku fadhiyaa de wax waa laba aqiido marka mid uu rumaysan yahay lama yaqaan midana waa tan waa wataayo aqiidadu hal wada ilaahay marka ayada baadiyay hadana waxay tahay midaan is waafaqsanayn aqiidadoodu wakaasa kursigu marka saas weeye waa laba soomaa thumma al-qalamu qalamki قلمكنا يساقنا محوية وجسم عظيم نوراني خلقه الله إلهي بأبوري وجسم وين إلهي أبوري وأمره بكتب ما كان وما يكون إلى يوم القيامة إلهي قلم كاسمركو أبوري وحو أمري لو حصاص عضوان كورمدان إنه وحكو قرى قلم كاسم وحكو قرى محايتها ما كان وما يكون إلى يوم القيامة وحي هريو دعي وحدعي دون إلى يوم القيامة ayuu halkaas ku qoray waa diyaarsan halkaas ku qoran yihiin wax ka soo dhacay halkaas ku qoran yihiin laftirkiisa yaani sida awlaha ah asaga iyo kursiga ka horeeyayba iyo arshigi kulligood waa ka midaysan yihiin waxa weeyaan in laga afaysto laga joogan xaqiiqada aad loo sii dabaalan ayaa markaa salaamada ku jirta ama haban wal kaatibuna kaatibiintii ku qorahayay malaa'ik baa laga hadlayo malaa'ikatul kaatibuna way malaa'iktii wax qorahayay
marka saddex qaybood weeyo oo saddex waxyaabood bay qoraan. kuwa waxaa la yidhaahdaa alkaatibuuna cala alcibaadi acmaalahum fi dunya, waa kuwa addoomanka acmaasha ka qoro, saalixaad iyo sayi-aadba qoro, acmaasha bay diiwaan geliyaan addoommadu leeyihiin, waa kow qoladaas. qolada labaadna waxa way alkaatibuuna min allawxi almaxfuud maa fii suxufi almalaa'ikati almuwakkaliina bitasarufi fi lcaalami kula caam. kuwana waxaa la yidhaha waa malaa'igta lawxulmaxfuudka ayay ka soo qoraan suxufta malaa'igta muwakkaliinta oo tasarufka caalamka loo wakiishay, sanad walba wixii ay fulinayaan tasaruf ahaan u fulinayaan iyay soo qoraan. qolaha marka warqado qoran unbaa loo dhiibahayaa. lawxulmaxfuudka wixii maa kaana wamaa yakuunu ku qoran yihin moogtahay, malaa'ig baa u xil saaran oo ilaahay ogeysiiyey inta sanadkan dhacaysaba inay warqado kusoo qoraan ee malaa'igtan muwakkaliinta oo tasarufka loo diray ay kusoo wareejiyaan. qolada saddexaadna alkaatibuuna min suxufi almalaa'ika kitaaban yuudacu taxta alcarshi, kuwan warqadihii suxuftii loo dhiibay oo sanadkaas wixii dhacahaya ay ku howlgalayeen, kuwaa kasii guurinahayo kitaab bay ku qorahayaan, markaasay taxta alcarshi dhigahayaan. yacni shaqadii loo diray baa koobi laga hayaa, sida maarata waxyaabaha xafiisyada qofka wixii loo dhiibay uu warqadahay ku qoran yihiin koobiga laga dhigayo oo kale xafiisyada noocaasoo kale wey. ayagaa marka maamulkii la barayaayo iyagaa markaasaa loogu adoonsanaya shaqada ayada. wax ilaahay ka kala fakanaya wuxuu hadda isku raadinaya midna ma jirto, waa noo soo socotaa laa lixtiyaajin, hadalka sheekhay ku soo socotaa. marka sidaas weeye malaa'igta kaatibiintu noocyada kala duwan bay yay usii kala baxaan iyaga ruuxooda. alla wuxuu cadfun bilaa caadif wey. marka kaas kuwii horadna xarfu cadafku waa joogay, ka waa ka xadfan yahay beydka qaadi waayey. lawxi qalamka hadda aan sheegayni lawxi wax ku qorayay weeyaan. laftirkiisu waxa weeyaan jismu nuuraaniyun kataba fiihi lqalamu, qalamkaa wuxuu ku qoray biidni illaah maa kaana wamaa yakunu ilaa yawmi alqiyaama. wixii uu qalamku wax ku qorahaya lawxaanu ahaa, lawxulmaxfuudka la yidhaahdo, waa lawxa xifdisan oo halkaa ku sugan weeyaan. waayahay intaa markuu sheegu wuxuu yidhi kullun, ilaa way isku wada cadfan yihiin oo khabar baa loo rabaa soo maaha. waalcarshu waalkursiyu uma alqalamu waalkaatibuuna wallawxu kullun min hadihi almadkuuraati, mid kastoo kuwan hadda lasoo sheegay ka mid a xikamun duu xikamin, xikmado midu saaxiib ah wey. xikmad ayaa loo sameeyey. xikmadda iyada ah wain qasurat cuquuluna can alwuquufi calayha, xikmaddaas inaan dul istaagnoon ogaano caqliyadayada haba ka gaabiyaane xikmad la-aan ma aha. marka shayna xikmadiisa waa kuu daahiri oo waad garan, shayna inaadan xikmadiisa garan baa looga yaaba. ilaahay midkaan wuxuu uga jeeday oo maarata xikmad ah marka isku mid adugu garan amaha garan, wax xikmad la-aana ma jirto, cabad bay noqonaysaa haddii kale iyo lacib. taana ilahay waa ka hufan yahay. marka xikmadaa loo abuuray. waayahay maxaa la diidanya marka? laa lixtiyaajin baahi darteed ma ahayn, laa lixtiyaajin waa saas oo waxaa isku xiran kullun min hadihi almadkuuraati xikamun duu xikamin weeye, laa lixtiyaajin. waayahay oo macnaha baahi daraaddeed ma ahayn. laa lixtiyaajihi tacaala sha'nuhu ilaa shayin minha, baahi shay iyada ka mid ah uu qabo ma ahayn wuxuu ilaahay u abuuray ashyaadaas iyada ah, baahi muusan u qabin. hadda marka ashyaada iyaga ahayd mid walba waxaa fahamka xaggiisa kasoo degdegi lahaayo, taasay shaqada qabataa, taamay shaqadaa qabataa. wixii oo dhan marka hadda maxashigu isdaba dhigo wuxuu yidhi falam yakhluq ilcarsha lilitiqaa'i, inuu isku ilaaliyo oo ma garanaysaa intuu ku dul sugnaado. adigu makaankaa deganta waad isku ilaalina moogtahay. say moodeen qoladan ilaahay inuu ku fadhiyo oo isku ilaalinahayo, sidaas iyada ma aha. wax kastoo wax ku fadhiyo oo isku ilaalinahayo wuu u baahan yahay, haddii laga hoos bixiyana wuu dhici. waxaas marka ilahay waa ka nasahan yahay. walalkursiyu liljuluus, kursigana inuu markaa ku fadhiisto sida hadda kuraastaan ugu fadhinoo kale maya, oo muuna abuuran. walalqalamu listixdaari maa qaaba can cilmihi tacaala, yacni waxa weeyaan qalamkana uma abuurin inuu ku xaadirsado oo ku diyaarsado maa qaaba can cilmihi tacaala allahu can dalika. damiirkaas markuu sheegay baa tacaala la raaciyey. walalkaatibiina umuuna abuuran malaa'igta kaatibiinta ah, walallawxa iyo lawxa israaciyo. waayahay lidabdi maa yakhaafu nisyaanahu, inuu ku dabdisto wax uu inuu hilmaamo ka yaabayo, taana ma aynan ahayn. sidaa daraaddeed xikmadaan loo abuuray laa lixtiyaajin. midka ugu weyn oo carshigaa sayid cali waa kii ka yidhi sida alfarqu bayna alfiraq uu ku soo raray sheekha la yidhaahdo
cabdulqaahir bin طaahir abu mansuur albaqdaadi wuxuu sayid cali yidhi ina allaha khalaqa alcarsha idhaaran liqudratih laa makaana lidaatih ilaahay carshigaa weynanka badan wuxuu u abuuray awooddiisa inuu ku muujiyo laa makaana lidaatihi inuu makaan ka dhigto uu dego oo daatadiisa makaan u ah taa ma ahayn makaan ilahi waa ka hufan yahay soomaa caqiidadii salaf marka saasay ahayd marka ashyaadaas iyagaa laa lixtiyaajin halkaa iska dhig laakiin ashyaadaas ilaahay wuu abuuray xikmad buuna oo u abuuray oga jeeday waayahay omana baahanayn rumaynteedii hadda usoo dhaadhac marka wuxuu yidhi waliimaanu iimaan rumayn bihaa ashyaadaas iyaga alla rumeeyo madkuuraadkaas yajib wuu waajibayaa yajibu calayka adiga korkaada ku waajibayaa ayuha alinsaanu insaanow hawshaa waajib ay kugu tahay ogow hadda inaad rumaysid arrin waajib kugu ah weeye sidaas weeye ayuha alinsaan marka la leeyahay ayuha alinsaanu almukallaf insaanka mukallafka ah weeye ninka qofka shaqadaa laga rabo rag iyo dumar miduu ahaadaba addoon iyo xor miduu ahaadaba addoonka mukallafka ah ayaa laga rabaa inuu rumeeyo waajib ayayna ku tahay waaya wannaaru xaqun uujidat kaljanna falaa tamil lijaaxidin dii jinna wuxuu yidhi wannaaru naartii xaqun yacni haabitatun mid jirtoo sugan weeye uujidad waa la ahaysiiyey kaljannati xaalay la mid tahay jannaday la mid tahayoo waxay kala mid tahay filxaqiyati oo hubuudka iyo waliijaadi bay kula mid tahay waana wax jira waana la ahaysiiyo haddeeray diyaar yihiinoo horay u abuurnaayeen wey waqti maadi oo tagay baa la abuuray falaa tamil ha u janjeersanoo ha u leexan lijaaxidin mid jaaxid ah oo dafirahaya hawshaas kaasoo dii jinnatin jin qaba dii jinnatin waalan oo saaxiibu junuunin ah qof waalanoo waxaas xaqa ahoo sugan diiday oo jaxdinhaya kaa xaggiisa ha u leexleexan buu ku yidhi sheekhu wannaaru naarti xaqun weeyaanoo uujidad waa la haysiiyey kaljannati xaalay la mid tahay marka naartii jannadu maxay kale yihiin wannaaru naarti allatii hiya daaru lcadaabi naartii daarulcadaab ahayd xaqun haabitatun wey xaq waxaa leeyahay wixii sugan maxay ku sugnaatay bilkitaabi wasunna waitifaaqi culamaai lumma kitaabkii iyo sunnadii iyo culamada islaamka isku waafaqidooda uujidad waa la ahaysiiyey yani awjadaha allah ilaahay baa ahaysiiyey fii maa madaa waqti horaa la ahaysiiyey waba diyaar sidaasay diyaar ku yihiin wuxuu yidhi kaljannati xaalay naartaasu la mid tahay naartee jannadee allatii hiya daaru thawaabi daaru thawaab wey marka jannadune taas xaalay la mid tahay oo waxay kala mid tahay fii kownihaa xaqan inay haabito tahay wa annahaa uujidat fii maa madaa howlahaasay kala mid tahay waxaas isku raacsan yihiin labadooduba musanifku marka wuxuu ku radinhayaa meesha hore xaqun uu ka cabiro hubuudka iyo sugnaanshaheeda ah kuwa bilkuliyati u inkirayba janniya naar waxa la yidhahda maba jiraan waa falaasifada weeye way ku kufriyeen arrintaasay ku gaaloobeen warka inay mawjuudo tahay mid walba uu sheego uujidad uu yidhi kaljannatina hadda uu ku shabahay iyadana uujidad weeye taana wuxuu ku radinhayaa waayahay weliba wuujidad fii maa madaa waa loo jeeda soo maha kuwa inkirahaya wujuudkooda fii maa madaa haray bay u samaysnaayeen qolaa inkiraysa moogta oo waxay leeyihiin marka qiyaamaha laisugu tagaa la diyaarin oo la ahaysiinhayaa waa rag muctasilada ka mid ahoo laba sheekoo abu haashim iyo cabduljabaar almuctasiliyeyni baa sidaas iyaguna ku tegay kuwaasuu ku radinhayaa markuu labadiba isku radiyey oo uu sheegay baashu inay jirto waa xaqun waa haabita falaasifadii ku radi wuujidad fii maa madaa baa la ahaysiiyey taana qoladaas muctasilada ka midka oo waaweyn ku radi intaas markuu xagga isula tuuray ayuu markaa wuxuu yidhi falaa tamil ha u leexan ha u janjeersan weeye liqawli jaaxidin ay munkirin mid dafirahaya qowlkiisa jaaxidin munkirin lahumaa hadde bilmarati inuu bilmarati haddii la dhaho bilkuliyati weeye oo bilkuliyati u inkirahayo likufrihi waa gaale kalfalaasifati aw munkirin liwujuudihimaa fii maa madaa libidcatihi ma gaaloobina laakiin waa bidci sida abu haashim iyo ninkaa la yidhaahdo cabduljabaar oo muctasilada labadaba ka midka ah marka labadaas waa laba jaaxid midna wuxuu diidayaa jiritaankeeda bilkuliyati wax naar iyo jannada maba jirto ku leeyahy waa falaasifadii way gaaloobeen kanna wuxuu leeyahay jannadii naartu jiritaankooda fii maa madaa baan diidanahay laakiin dib baa laga samayn doonaa hadda xilligan maba jiraanba janniya naar
waxaa laga hadlayaa wax la diyaarin doono oo midna xabsi ahaan loo diyaarin doono midna thawaab ahaan buu ka leeyihiin rag muctasilada ka mid a soomaa labadaa qolow ku kala radiyey warkaas markaasuu tilmaamay ninkaas jaaxidka oo wuxuu yidhi kaasoo dii jinnatin saaxibi junuunin waali u saaxiiboo jin qaba waa kaas wuxuu saa u leeyahay baa liyi lianna inkaarahumaa laa yakaadu yasduru min dii caqlin janniya naar in la inkiro qof caqlile kama soo fuli karto fainahu yuؤaddii ilaa ixaalati maa culima min addiini bidaruura waa wax yani macluumun bidaruurati ahoo aan barashay icmaalulfikriba u baahnayn bay jannadii naartu noqdeen say nusuus isaga soo daba noqonahayeen oo qur-aan iyo xadiid ba lahaa oo nabigu calayhi salaatu wasalaam kasoo bilow qur-aanka oo kale abuna aadam baa la sheegayaa inuu deganaayo laga soo saaray oo qur-aanka markii khadiicadu dhacday ka bax jannada la leeyahay waa qur-aankii soo wax jira fii maam allah maaha waayahay nabigeena calayhi salaatu wasalaam intaasoo dhan saxaabada u sheegay inuu jannadii naartii arkaya oo daalacanhayo halkaygaan aan taaganahay aan arkahayaa dadkeeda dadkaasaa u badan wuu tilmaamaya xadiid fara badan oo noocaas marka wixii sidaas nusuustu markay u caddeeyeen buu wuxuu ka mid noqday maa culima min addiini bidaruurati buu ka mid noqday wixii ayagaa marka qofkii diido haddii waa qof waalan camal soo maaha markaasuu diijinha ku sheegay sheekh aad buu radiyey daaraa khuluudin lisaciidi washaqi mucadabun munacamun mahma baqi wuxuu yidhi daaraa khuluudin wahumaa labadooda jannadii naar baan ka soo hadlayna labadoodaasu daaraa khuluudin waaritaan labadooda daar weeye waayahay lisaciidi washaqi marka faljannatu jannadii daaru khuluudin lisaciidi weeye washaqi wanaaru naartina daaru khuluudin lishaqiyi weeye saasay u kala leeyihiin labadooda daaraa khuluudin wahumaa jannadiiya naartu daaraa khuluudin waaritaan labadeed daar weeye lisaciidi oo faljannatu jannadii daaru khuluudin lisaciidi kii liibaanoo dhuroobay ayay daarulkhuluud u taho iskaga waarayaa waayahay washaqiyu wanaaru naartina daaru khuluudin daar lagu waarahaya ayay u tahay lishaqiyi qofkii shaqiga ahaa ayay u taho ayaan darsaday dhur darsaday waa kaas weeye marka kaa saciidka oo marka daaru khuluudin ay u tahay kuwii saabiqiinta marka hore horey ka galay ha ahaado ama mid yacni maaragtaa bacda tadhiir lagu soo wareejiyey ha ahaado khuluud may ku dambayn soomaha labada qolaba taasay keenaysaa marka sidaas weeye waayahay qofku hadduu imaan ku dhinto waa saciid weeye markaas wuxuu ku soo wareegi daartaa jannadan buu ku dambayn doonaa si kasta hadduu inta caasi u yahay cadaab lagu hormariya hataa shaqiguna waxa weeyaan waa wixii gaalnimo ku dhintay weeye markiisi hore cumrigiisa in badanoo ka mid ah badankiisa iimaan ha ku soo qaato oo dibaa ka ridooda hadduu rabo ku dhimashada unbaa laga eegi gaalnimo qof ku dhinta bes waa shaqigaasoo khuluudkaas ayaa u yaallo kaas weeyaan marka labadii daarood waana daaraa khuluudin labadaa qolayna u kala yihiin shaqi iyo saciid bay u kala yihiin mucadabun munacamun mahma baqi marka iyaguna waxaa weeye munacam iyo mucadab iyo munacam meesha ku kala aadinti yihiin waad garan mucadabna qof la cadaabaya munacamna mid loo nicmaynayo saciidkii shaqigii bay ku kala aadan yihiin moog tahay marka waxaad tidhaahdaa mucadabun munacamun marka fadaakhilu naari waa kii markaa shaqigii dambeeyey weeye ogow mucadabun fiiha weeye munacamun wadaakhilu ljannati jannada midka galayna munacamun fiiha weeye waa saciidkii saasaa taana loo qadari oo markaa mucadabun munacamun fadaakhilu naari naarta midka galay mucadabun fiiha weeye waana shaqigii wadaakhilu ljannati jannada midka galayna munacamun fiiha weeye waana saciidkii mahmaa baqiya kullu minhuma inta uu baaqi yahay mid kasta oo labadooda ka mid a mahmaa baqiya inta uu baaqi yahay kullun mid kasta min alfariiqayn ilaa saciidkaasu intii liibaantoo dhan buu u taagan yahay shaqina intii dhur darsatoo dhan buu u taagan yahay kullun min alfariiqayni inta uu baaqi yahay oo fii ixda daarayn uu ku baaqi yahay labada meelood intuu ku baaqi yahay baa loogu nicmaynaya kana lagu cadaabahaya intuu ku baaqi yahay wuxuu u leeyahay kuwana baaqi ahaanshooda waa abadan kuwana xagga naarta aan ka hormarno kuwa baaqi ahaanshooda waa weligeed kuwana waa laga saari doonaa marka intay ku jiraan bay mucadab ku yihiin hadhow marka qolaa laga saarayo jannadii lagu wareejin bes way ka baxeen mucadabnimadii laakiin kuwa ku haro gaalnimada kuwa ku dhintaya iyagu mahmaa baqiyadooda abadan bay noqotay
waayahay jannadii kuwii hore ka galay noqdeena iyo kuwii dib laga keenay noqdeena bacda tadhiir waxaa weeye iyaguna waa mahma baqiya oo weligeedba ah halkaasay markaa ku jirhayaan saasaa marka dadkii u kala baxeen waayahay mahma baqiya inta uu kullun min alfariiqayni baaqi yahay oo fii ixda daarayni uu ku baaqi yahay inta halkaa ku jira weeyaan waayahay iimaanuna bixawdi khayri rusli xatmun kamaa qad jaa'ana fi naqli wuxuu yidhi iimaanunaa rumaynteenna bixawdi khayri rusli rususha kii ugu khayr badnaa oo nabigeenna calayhi salaatu wasalaam xawdkiisa inaan rumayno xatmun waajib weeye kamaa qad jaa'anaa sida nooguba yimid fi naqli naqliga sida noogu yimid weeye fi naqli yani fi lmanquuli canhu sala allahu calayhi wasalam kan laga soo naqilay ee axaadiistiisa ah sida noogu timid oo noogu soo aroortay wey iimaanunaa iimaankeenna bixawdi khayri rusli rususha ilaahay kii ugu khayr badnaa xawdkiisii aan rumayno waa nabigeena sala allahu calayhi wasalama xatmun waajib weeye arrintaa waa arrin waajib ah wey xawdka marka nabiga waa jismun makhsuus kabiirun muttasicu ljawaanib yakunu cala alardi almubadala wa hiya alardu albaydaa kalfida man shariba minhu laa yadma'u abada tariduhu hadihi lumma waa jismi makhsuusoo si gaara ilaahay u abuuray waa kabiiru aad buu wen yahay muttasicu ljawaanib ee dhinacyadiisu waa waasic makhluuq dhan baa de ka cabahayo aad buu weyn badan yahay yakuunu calaa ardi lmubadalati ardada lagu bedeli doono yuu dul saaran yahay oo yaallaa waana ardada baydaada ahoo cad sida fidada oo kale qalinka sidiisa fidada oo kale u caddahay man shariba minhu laa yadmau abada qofkii mar ka cabo weligii ma oomahayo taridu hadihi lumma ummadaanoo dhan baa ku soo aroori oo isugu wada imaanayso meeshaas ku soo aroorahayaan waayahay ciddii laga erinayay iyo waxyaabahaas waayahay wuu kuu sheegayaa oo soo socotaa dad baan loo ogolayn markay kusoo qamaamaan kadib yaa sidii xoolo baadiya la isaga celiyo kale looga dhufanaya gafuurka oo waa loo diidi doonaa sidaas weeye marka kamaa jaa-anaa sida noogu yimid buu yidhi waxay waajib ku tahay oo magaraysa inay waajib tahay na tusahayo waxawey kamaa jaa-anaa fi naqli sida naqliga noogu yimid fi naqli waxa weye fi lmanquuli canhu sala allahu calayhi wasalam sida macnaha waxa weeyaan nabiga laga soo raray wataa marka axaadiistii waxbuu ka soo qaadahayaa xawdka nabiga tilmaamaysay marka sidaas loo tilmaamayana weeyaan waay yanaalu shurban minhu aqwaamun wafaw bicahdihim waqul yudaadu man taqaw wuxuu yidhi yanaalu waxaa gaari shurban cabitaan waxaa gaari oo qaadan minhu xaggiisa laga cabo aqwaamun dadyow wafaw oofiyey bicahdihim ballankoodii ilaahay ay la galeen waqul waxaad tidhaahdaa qowl ictiqaadi aad tidhaahdaa yudaadu waxaa laga mancin oo laga erinayaa man taqaw kuwii qooqay ayaa laga erin qolo ku soo qabaamo soo hunguriyey waa loo diidi doonaa inay ka cabaan waayahay yanaalu waxaa gaari shurban cabitaan minhu laga cabo min xawdi khayri rusli xawdkii hadda aan soo sheegaynay aqwaamun qolyo qowmiyaal dadyo weeyaan aqwaam marka waxaa loo jeedaa iyadoo qowmka ragga keliya lagu ridi jiray haddana maa yashmalu dukuura walinaaf rag iyo dumarba hadda waa looga jeedaa axwaasha cabidoodana inay kala duwan tahay oo mukhtalifo tahay baa la sheegayaa oo qof lidafci cadash inuu oon isaga difaaco u cabahayaa qofna wuxuu u cabahayaa litaradudi macaansi buu u cabahayaa qofna litacjiili lmasara farxaddaasu soo degdegsanahayaa oo uu u cabahayaa dadka marka qaabkay u cabahayaanbaa ruuxooda sii kala duwan oo kala martabaa layahay marka qowmkaas cabahaya oo wafow oofiyey buu yidhi bicahdihim cahdigoodii bay oofiyeen yacni wafaw allaha tacaala bicahdihim ilaahayba waxay u oofiyeen cahdigii iyo miihaaqi ay la galeen waqti hore oo ilaahay subxaana wa tacaala caalamu dar xilliga la yidhaahdo oo dahriga abuna aadam laga soo saaray wixii oo dee yar yar ah oo arwaaxdii oo yani caalamu dar baa la yidhahda darri oo yar ah markaasaa laga qaaday ballan wa alastu birabbikum markaasay qaaluu balaa saasay yidhaahdeen qaaluu balaadii iyada ahayd oo rabbigeen baa tahay ahayd bay ku socdeenoo ma gaaloobin rabbibay rabbinimo u yaqaaniin waana kusii socdeen wey sidaas weeyaan rususha marka waxaa loo soo diray in ay ahdiga asaga ahaa dadkii tajdiidiyaan axkaamtii ku dhaqmi lahaayeen ay ku wadi lahaayeenna ay u keenaan baa loo soo diray intii ahdigii marka sidii u haysatayna rusushii way raaceen
intii cahdiga ka baxdayna waa kuwa rususha diiday oo beeniyay cahdiga asaga alastu birabbikum qaaluu balaa bay ka noqdeen oo rabbinimadii iyo shalay ballan qaadeen ayay ka noqdeen wey marka kuwaana way oofiyeen oo ilaahay bay rabbi u yaqaanaan sidoodii bay ku socdaan oo ambiyadii bay raaceen kuwaana rabbinimadii shalay lagu ballamay oo ay qaateen bay ka noqdeen oo ay diideen marka gaaladu rabbi ma yaqaanaan way ka noqdeen wixii ayaga ah way ka noqdeen ballantii ayada ahayd rabbi bay yaqaanaan wax ka jiraan mahmood cahdiga ay ka noqdeen oo lagu haysto muxuu rabbinimadii shalay ay ballan qaadeen inay ilaahay u qirsan yihiin oo ay ka noqdeen way cahdiga ay buriyeen kuwaana waxay ku amaanan yihiin waxa weeye rabbinimadii maalintaas ilaahay u qireen bay sidii ayada ahayd oo ugu socdaan oo ay ugu dhagan yihiin marka saas weeyaan hawshaas waxa la weydiin markay dhintaanna mar rabbu ka weyd oo qabriga la geeyay ama ay qabriga yeena gelino qabriga waa sidii loo badan waxa qabriga loo soo qaaday su'aal qabri loo yiraahdee qofkii biyo ku dhintay iyo qofkii bahal cunaba waa la weydiin qof ka soo dhintay su'aashaas marka mar rabbu ka la weydiin hadduu ku baaso rabbiga waa Allah yiraahdana waa la fasix macnaha waa nin su'aasha ku baasay moogta waa sida rabbi yaqaano weey kii aan rabbi ilaahay u aqoon sanam u yaqaanayna meelahaas ku wareegi afka kala jiidi marka afka la taagaya waxba marka islaama hayo halkaas waa lagu kala baxay waayahay marka gaalo dhanba mar rabbuka inay ku baasahayaan buu marka qolaan mabda'oodu noqonayaa hadii ma ogtahay lagu raaco waxaas mabda'oodu saasoo noqonaya hadday hadda ku baasaan ayaa gaala ayaa ahlu naar oo ma jirtay noqon mana jirta hawshaas waxa weeye mar rabbuka waxa la soo weydiinayo qofkii rabbi yaqaanay qofkan aqoon lagu kala saaro waxa rabbi aqoonna waa gaalo wixii rabbi yaqaanayna waa islaam waa muuminiin saasa lagu kala saarayaa waayahay marka qoomkaas waxay oofiyeen waa ahdiga alastu birabbikum caalamu dar xilligiisii markaas qaaluu balaa yiraahdeen kaasay markaa oofiyeen waka waayahay markuu sheegay marka aqwaam ka cabahayo kuwa balanta oofiyay ah oo diintii aan bedelin oo waxba kharibin ayuu markaas wuxuu yiri وقل وحاتر هذا قول أو اعتقادي أو حاتر هذا يذات وحالة منعين أو لغيري من ضغوا كوي قوقي كواس إيقا هوي مركوا أقوام ظلموا أنفسهم بأن غيروا وبدلوا عهدهم عهد قبل يغيرون يبدلون الذي أخذه الله عليهم إلهي وكقاضي مركا وحي مرتدكي معناها مدرودين كمدي هاي qofkii diinka ilaahay ku soo dariyay ma la yardaahu allah murtadiintu kamid yahay kuwa madruudiintu kamid yahay man khalafa jama'at almuslimin kal khawarij wal rawafid wal mu'tazila madruudiintu kamid yihiin ala ikhtilaafi firaqihim mujassimadi iyo baladaas oo dhan waa laga wada erinaya markaas dhamaantood marka waa loo diidayaa waa laga erinaya waxa ahlu zayqa ah waxyaabahaas oo dhan waa laga erinaya waayahay marka waxa ay bedeleen oo takhribaad bay sameeyeen oo ihdaaf bay sameeyeen oo bidcay la yimaadeen oo waxaan diinta nabiga aan ku soo dareen marka dad aan aqoonayaan u yaan balaga erin buu yiri marka laga ceyrinayaa nabiga kaleey salaatu wasalaam markay ku soo yaacaan kadib xawd markaasaan leeyahay waa dadkaygi waa asxaabi waxaan oranaya markaasaan la leeyahay maxaad ku ogtay gadaashaa waxay bedeleen adduun kharibeen markaasaan suxqan leeyahay markaas yaani alzamakum allah suxqan saxaqahum allah suxqan baan oranaya markaasa la sii fogeynaya ilaahay ha iga fogeeyaan leeyahay marka waa kuwa iyaga nabigu saa u sheegay qoom in laga erinayo ruuxii nusuustaas oo si cadeynaysa waayahay waajibun shafaacatul mushafa'i muhammadin muqaddaman la tamna'i waajibun waxa waajib ah oo inaan rumaynana waajib ay nagu tahay iyadoo sugan oo baaqane shafaacatul mushafa'i kii laga shafaaca aqbalayo mushafac marka la yiraahdo kii laga shafaaca aqbalayo waa nabiga kaleey salaatu wasalaam shafaacadiisi taas iyada ah waajiba mid thaabito oo sugan weeye inaan rumaynana waajib ay nagu tahay mushafacaas waxa weeye taayala tilmaamahay muhammadin ahaa ama muhammadin oo bedel iyo bayaan waayahay muhammadin bedelku waliba ku wada muhammadin shafaacatu muhammadin ba waajiba sallallahu alayhi wasallam muqaddaman halu yahay mid la hormarinayo على غيره من الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وحاصدا وشفاعي دونا لكن أساء كهرية وأين ورد شفاعة عظمى العصمية الباب كفرويا لا تمنع هديد وهمنع وحاويا إن شفاعة النبي وسيده وصغنت لا تمنع لا تعتقد امتناع شفاعته صلى الله عليه وسلم سيدتك قاريا لين وواجب وحواجب شفاعة المشفعي نبي شفاعة هي شفاعة ديس الشفاعة وحا اللغة اللي قولن جري الوسيلة والضرب عرفك أما شرعك إسدلاحي سوحا لا يقانا
su'aalu lkhayri min alghayri lilghayr waayahay waa su'aalu lkhayr wax khayrahaa waxaa la weydiinayaa min alghayri qof kale axad kale aad weydiinaysaa lilghayri axad kalena waad u weydiinaysaa adugu marka maxaa tahay wax udhexeeya qof udhexeeya labadan khayr baad su-aalaysaa axad baad weydiinaysaa khayrkaas samee lilghayri in qof kale loo sameeyaadna u weydiinaysaa marka nabigeena calayhi salaatu wasalaam makhluuqi intoodoo kaleo dhan khayr buu weydiinahayaa wuu shafeecayaa dadka axadka uu weydiinaya uu ka dalbahayana waa allah subxaanah hayrka lagu sheegayana waaba inti kale wey ummadda inteedii kale weeyaan oo alwaluuna walaakhiruun baa meesha isugu tagahayo sida xadiidka sheegayo shafaacada cudmada marku ka hadlahay waxaa banaanka isugu tagahayo ummadihii alawaluun walaakhiruun markaasay waxay ku tashanayaan yaa u ahaan jiray waasita dadka iyo ilaahay markaasaa waxaa ilaahay ku ilhaaminhayaa rususha markaasay nabiyullaahi aadam ku yaaci uu ka cudur daaran ibraahim nuux muusa ciisa way soo wada marayaan midod marka cudur daartana nabigeena hawsha kusoo dhammaanaysaa marka ilaahay markii u horeysay kuma ilhaaminin inay ku yaacaan nabiga ka bilaabaan maxaa dhici lahaa haddii intay kusoo yaacaan ka bilaabaan ana lahaa unbuu odhan lahaayo dee waxa wey wuu shafaaci lahaa marka waxaa laga yaaba inay isdhihi lahaayeen nabi kasta saan unbuu u shafeeci lahaa haddaa u tegi lahaydeen marka si nabiga fadligiisa lagu muujiyo abuna aadam laga soo bilaabo ululcazmigi intii kale lasoo maro afartii kale waa lasoo maro ululcazmigi ibraahim muusa ciisa nuux iyo abuna aadam abulbashar shantaasba wuu sheegaya xadiidku intaa marka intay soo mareen ka wada cudur daarteen oo nabigeenu shafeecay markaas way ogaadeen marka in maaragtay way ogaanayaan in waxaan wax khaas u yihiin iyo fadligiis ayaa lagu daahirinaya laakiin haddii laga bilaabi lahaa dadku maxay isdhihi lahayn aadam haddaa ka bilaabi lahaydeenna sida unbuu u shafeeci lahaa inay isdhihi lahayn baa laga yaabaa hawsha inay saa ahayn baa la tusaya moogta waxaa lagu ilhaamiyey marka wareeggaa dheer inay soo maraan yaa lagu ilhaamiyey marka sidaa weeye waayahay waa sidaas marka oo waxa weeye nabigu ummadii makhluuq intiisa kaleo dhan buu u shafaacaya oo khayrka la sheegahaya kuwaas ayaa noqonahaya wuu u shafaacaya marka nabigu calayhi salaatu wasalaam waayahay markaasuu wuxuu yidhi muqadaman xaalu yahay oo waxaa laga hormariyey rusushii ambiyadii iyo rusushii iyo malaa'igtii muqarabiinta inta waa laga hormariyeyoo dib bay ka shafeeci doonaan inta uu shafaacada cudmada asagoo albaabka ka furayo midda cudmada uu isu taagayo wax shafeecaya lama arko way xiran tahay markaa kadib ayuu markaa bilaabi doonaan inta kale oo shafeecaysaba laa tamnacha mancinina marka waxaa weeyaan warkeeda wuxuu ka dhigan yahay yani laa tactaqid imtinaaca shafaacatihi sala allahu calayhi wasalam nabigu inuu u shafeeci doono ummadahaas ha mancinin wey oo shafaacaad kale oo sii daba ooli doonaa jira oo markuu mid haween sameeyey kadib ma xirmin shafaacadiisii wuu sii wadayaa marka ahlu kabaa'irkii buu shafaacayaa kulli waxaasoo idil wuu shafaacayaa waayahay asagii sooma shafeecin albaabkii sooma furin markaas intii kaleo akhyaar ahayd oo ilaahay agtiisa door ka ahayd oo idin inay shafeecaan bay bilaabayaan markuu nabigu furo albaabka wuxuu yidhi marka wagayruhu waxa weeyaan marka wagayruhu min murtada alakhyaari yashfac wey marka wagayruhu nabiga kayrkiis oo min murtada alakhyaari akhyaartii doorka kuwii doorka ahaa kuwooda laga raadlayahay weliba intooda kaloo ah waa yahay waa ambiyadii waa mursaliintii waa malaa'igtii waa saxaabadii waa shuhadadii waa culamadii caamiliinta ah waa awliyadii ilaahay waa waxaasoo idil waxay noqonayaan murtada alakhyaar bay noqonayaan wagayruhu nabiga kayrkiisa oo min murtada alakhyaari dadkii doorka ah kuwooda laga raadliga ahaa yashfac wuu shafeecahayaa kayrkaasu waa shafeecaya markaas kalambiyaai walmursaliina walmalaaikati wasaxaabati washuhadaai walculamaa alcaamiliina walawliyaai yashfac waa shafeecahaya fi arbaabi alkabaa'ir dembiyada kabaairta kuwii galay baa xataa loo shafeecaya kuwaas iyaga hawey yani gaal wixii aan ahayn gaalo marka iyagu shafeeca meeshaas oma taalo waxa weeyaan kabaa'ir kastoy tahay wax haddayna gaalnimo gaarsiisnayn waa loo shafeecaya marka qofkii yashfacu saas ku shafeecaya marka qofkaas kamaa qad jaa sida yimid oo soo aroortay ku timid fil akhbaari akhbaarta sida ku timid oo axaadiistu ku soo arooreen saasuu yidhi kamaa qad jaa sida yimid fil akhbaar akhbaarta sida ku timid wey akhbaarta waxaa weeye adaalati calaa dalika waaya wakamaa ajmaca calayhi ahlu sunnatina way isla ogolaadeen sidaa iyadaa inay sidaa tahay oo ay shafaacayaan murtada alakhyaar waa la isla ogolaaday yaa loo shafaacaya asxaabu alkabaa'ir gaalnimoba haddayna gaarsiisnayn shafaacada waa haraynaysaa markaas id jaa-izun gufraanu gayri اlkufri falaa nukafir mu'mina bilwisri
waxaa marka la isweydiin karaa ma qof dembi kabiira la yimid ama dembi la yimid fii carasaati alqiyaama halkaa lasoo istaagay baa aminkaas inta loo shafeeca dembi laga dhaafi inuu qofku la yaabaa laga yaabaa markaas waxaa loo sheegayaa taas inay jaais tahay yaa mamnuuc ka dhigay yaa mustaxiil ka dhigay taa laftirkeeda haddayna gaalnimo ahayn gaalnimada ilahay baa sheegay in allah waxaa weyaan laa yakfiru an yushraka bihi baa taalla taas laa yakfiru an yushraka bihi wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa kabaa'irtii halkaay soo gelaysaa soo maa marka haddii marka gufraankii uu jaais yahay halkaas in marka waa loo shafeecaya waana loo dhaafiyo halkaa in loogu dhaafo way dhici karaysaa markaasuu wuxuu yidhi id jaaizun id cille jaa-izun waxaa jaa-is ahoo bannaan oo dee ilaahay markaa mustaxiil aan ka ahayn gufraanu hayrilkufri gaalnimo wixii aan ahayn wixii dembi ahoo aan gaalnimo ahayn in la dhaafo waa arrin jaa-is ah weeye falaa nukafir gaalaysiin mayno mu'minan qof mu'mina bilwisri dembi ku gaalaysiin mayno saa ayuu yidhi id jaa-izun gufraanu hayri lkufri liannahu yajuuzu caqlan wa samcan caqligana way ku bannaan tahay samcigana haddii in loo dhaafahayo waaba la sheegayba gufraanu hayri lkufri min adunuub marka weliba marka saa la leeyahay id jaa-izun gufraanu hayri lkufri min adunuubi bilaa shafaacatin baaba in lagu dhaafaaba yaaba jaa-isaba marka fa bishafaacati awlaa horta warku saas u dhacaya waxa weeyaan inaan ayadan ciidamo u shafeecin loo dhaafaaba jaa-isaba wayakfiru maa duuna dalika hataa halkaas laguma sheegin ma og tahay shafaaco laguma sheegin haddii loo shafeeco aayaddu ma raacinin dee marka samcigii oo qur-aankaas la maqlaya iyo axaadiistii iyo caqligiiba waxaa jaa-is ku ah qofka kabiiro ku dhacay asagooba xataa loo shafeecin in loo dhaafayaaba jaa-isaba hadday saa tahay fa bishafaacati awlaa marka waayahay waxaas marka la sheegayaa wixii markaas dunuubta aan gaarsiisnayn hayrulkufrigu marka sheekhu yuu ku qaydaya moogtahay kufriga asaga wakaas in allaha laa yakfiru an yushraka bihi wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa waa kan soo qaadahay markaas waayahay wuxuu yidhi marka falaa nukafir waa hadalkii baa laga farcahayaa markaas gaalaysiin mayno mu'minan qof mu'mina bilwisri dembi uu galay ku gaalaysiin mayno falaa tukafir haddii adiga lagula khidaabayana taana way noqon kartaa labada marka way bannaan tahay wey marka axadan min almu'miniin biirtikaabi danbi sagiiratan kaana aw kabiira ku gaalaysiin mayno wey inaan la gaalaysiinayn qofka dembi uu galay lagu gaalaysiinayn laba shardi bay leedahay shardi waxaa weeye anlaa yakuuna dalika danbu min almukafiraat dembiga uu galay hadduu hadda kuwii lagu gaaloobahayo yahay falaa nukafiro ma taallo sida macnaha ka inkaari cilmihi tacaala biljuziyaati ilahay wuxuu yidhi arrimaha duuduub buu ogyahay juz-iyaad iyo tafaasiil ooma oguu yidhi maalan oo ilaahay cilmigiisii buu diidahayaa qayb ka mid a moog wuu ku gaaloobayaa marka kaas shardiga kalena waxaa weeye waa allaa yakuuna mustaxilan lahu dembigaas waxaasoo weliba macluum min addiini bidaruurati ka zinaa iyo wixii la mid a inuusan xaliilanin weeye oo istixlaalku waa kufri markaa marka dembiga bicaynihi inuu yahay mid lagu gaaloobo falaa nukafiro ma taalo haddii uu istixlaalo dembigaan maalan zin uu ku dhacay mana xaliilanin kuma gaaloobeen caasib u ahaan lahaa laakiin waa ii bannaan tahay buu yidhi waa ii bannaan tahay daas ku gaaloobaya marka sidaas weeye waayahay axad marka mu'miniinta ka mid ah ku gaalaysiin maynuu yidhi wisri uu galay hadda khawaarijta waxaad ogtihiin in ay qofkii dembi galo ka dhigeen gaal way gaalaysiiyeen dunuubtana saqaa'ir iyo kabaa'ir tafsiil amaba jira yidhaahdeen dembi oo dhan waa kabiira yidhaahdeen qofkii ku dhacana gaal buu noqonahayaa halkaasay marka iyagu mareen waayahay muctasiladina waxay yidhaahdeen qofkii kabiiro ku dhaco iimaankii wuu ka bixi gaalnimona ma gelahayay dhaheen laakiin waxay isugu imaanahayaan labadaba inuu ma kuwaas mansilatun bayna mansilatayn waa kuwii dhigay marka sidaas wey waxay marka labada fariiqba isla qabaan qofkii kabiiro ku dhaco inuu yahay mukhalladun fi nnaar kuwii kabiiraba waxaan kabiiro ahayn mamaba jirtay yiriba oo dunuubta o dhan ba kabiiro ka wada dhigay iyo kuwan kale oo yacni kabiirada qofkii galagaalaysiinayaba naarta inuu ku waarahayo ayay isla qabaan halkaasay marka mareen laakiin khawaarijtu cadaab alkufaar baa la cadaabay leeyihin muctasiluuna cadaab alfusaaq ayaa la cadaabayaabay leeyihiin waaritaanka lagu waarinhayana way isla qabaan waa madhab marka baatil ahoo waa taa uu diidan yahay weeye musanifku midda uu diidan yahay taas weeyaan khawaarijtaana waxaa la yidhi dembiga qaacidada ay sameeyeen xataa ayagu kama nabadgeli maxaa yeelay dembi oo dhan waa kabiira yidhahdeen waxyaaba saqaa'irta la rabay acmaasha in lagu dhaafo kabiiray ka dhigeen qofkii ku dhacana wuu gaaloobay oo waxay yidhaahdeen naartu ku waarahaya ayagu marka macsuumiin ma ahayn ma og tahay dunuubtii ilaa saqaa'irta ka dhaafi lahaan ayaga iska xidho waxay dhaheen lama dhaafahaya waa lagu gaaloobahaya macsuumiinna moo dembiga kama dhowrsano marka ayagaan ka nabadgelayn caqiidadaas faasidada waxay samaysay ayaga ruuxoodan ka nabadgelayn sidaas wey
waman yamut walam yatub min danbihi faamruhu mufawwadun lirabbihi waman axadkii yamut dhintaa walxaal lam yatub usan toobadkeenin min dembihi dembigiisu usan ka toobadkeenin faamruhu amarkiisu mufawadun mid loo bandhigahayo wey lirabbihi rabbigii baa loo bandhigahayaa in shaa cafaa wa in shaa cadaba wey ama caaqaba saas weeyaan ilaahay baa loo bandhigahayaa marka arrinkiisa waayahay waman axadkii yamut dhintaa waman yamut qofkii dhintaa bacda an irtakaba danban min alkabaa'iri gayri lmukafira kabaa'irta ta lagu gaalooba aan ahayn isagoo sameeyey bila istixlaalin aanan xalleeshanin buu dhintay waayahay wal xaal buu dhintay markaa lam yatub uusan toobadkeenin oo yacni waxa weeyaan min dembihi ila allahi tacaala uusan uga toobadkeenin fa amruhu marka kaa amarkiisu mufawadun wa mawkuulun ilaa rabbihi rabbigii baa loo wakiilanayaa markaas maxaa marka la diidayaa falaa naqdacu bilcafwi canhu lianlaa takuuna adunuubu fii xukmi lmubaaxa walaa bilcuquubati liannahu tacaala yajuuzu calayhi an yakfira maa cada alkufra laba arrimood baan iska jiraynaa cafwi ma go-aaminayno isagoo dembiyadaa galay oo markaa waxaa soo baxaysa dembiyada inay mubaax iska ahayd qofkii dembiyadaa galay soo maaha in la cafinayaan go-aamina haddii la yidhahdo dunuubtaasu mubaax bay ahayd baa ka dhalanayso ma go-aaminayna cafwi marka cuquubana u go-aamin mayno oo haddayba wixii gaalnimo gaarsiisnayn jaa-is bay ahayd ilahay inuu dhaafay moogta marka u dhihi mayno lama dhaafahay labadaa baabba marka annaga waa iska xiraynaa maxaa marka yeelaynaa mufawadun ila allah ilahay baan mudaynaynaa saasna axaadiid ayaa u soo aroortay oo saa u caddaysay wallahu subxana wa tacala